أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. إخواني وأخواتي في الله، السلام الله عليكم ورحمته وبركاته. كسر وهذا بيجكنا والله فما أنت سي أن أصو قلي رنتي دقدقة أو يقول لفتاي أرنتان صور كماشنا كمغضة وحنو بحيي muuqaal murugo geliyey ummadii badnayd ee Soomaaliyeed muuqaal murugo geliyey ummadda Soomaaliyeed guud ahaanteed muuqaalkan ama videogan aan idin soo deyn doono hadii la yiraahdo wixii diin ahaan Ilaahay iga garansiiyo iyo qowlba inaan ka iraahdo waa mas'uuliyad ummadda Soomaaliyeed guud ahaan u saaran gaar ahaan dadka wacyigelinta bulshada u taagan diinteeda iyo akhlaaqdeeda inay u dhowrsanaatana jecel mid guud u saaran weeye inaan wax ka iraahdo ayaan jeclaystay. diinteena islaamku maxay ka qabtaa, maxay ka tiri, arrintan ma dhacday, ma la hayaa meel ay ka dhacday iyo si ay u dhacday, inaan insha allahu tacaala arrintaa idiin soo tabiyaan jeclahay. muuqaal gariyey murugo qalbigayga ay weeye kanu insha allahu tacaala alla idin xifdiyo dhammaanteen murugo geliyey qalbigeenna muuqaalkan ama videogan walaashan ay nala soo share garaysay. walaalayaalow share dhaha, faafiya khayrka inaad faafisaan allahan annagoo dhan nagu duwo. runtii sharta aad baa loo faafiyaa. videogan aad buu u faafay, xalay buu isoo gaaray. wallaahi baan ku dhaartay hurdada xalay wuu iga haleeyay. thumma wallaahi baan ku dhaartay xalay hurdada ayuu iga haleeyay videogan ama muuqaalkan. waana waliba qof Mareykan ila jooga Iowa degan. Iowa mar baan dhex maray Des Moines Iowa mar baan dhex maray. runtii waxa weeye waa mas'alo nagu cusub. waa ummadii Soomaaliyeed oo fabrigeedii iyo waxay u taagneyd iyo qiyamkeedii iyo akhlaaqdeedii runtii wax weyn oo damage uu gaaray weeye. ma jiraa mise ma jiro ma aha waxaan u taaganahay. waxaan ka hadlayna waxa weeye maxay arrintaanu daaran tahay, xaqiiqadeeda diinta islaamka ma ka dhacday, hore ma uga dhacday, xukun ahaan maxay tahay, wixii Ilaahay iga garansiiyo ayaan jeclahay inaan ka iraahdo. ikhwaani wa akhwaati fillah, dad aad damage u gaaray muxuu ahaay ummad ahaan bulsho ahaan akhlaaqdeedii uu dhib fara badan gaaray baan nahay. dalkeedii burburay oo iyadii isdishay isbaabi'isay. runtii waxaana la ka soo weeraray meelo badan iyo caqiidadeennii. intaa waxaan u taaganahay beejkeena daacishow iyo dadka nagu taageero idinkoo kale ah la khayrka ah inaanu mar walbaba diinteena islaamka boorka lagu sayraya iyo wasaqda ka ilaalino. waxaan u taaganahay intaas inaan gaalada iyo qashinka ka difaacno. hadeerna shiicadan dib ugu noqonaynaa haddii Ilaahay yiraahdo, aniga iyo wixii Ilaahay ugu daro oo akhyaar ah. shiicadan ka hadli doonaa dhawaanahana musalsalna kasoo gelin doonaa. waa arrimaha aan ku mashquulsanaa oo waqtiga badan iga qaatay iyo page-ka aan rabo inaan dib u dhiso iyo waxa weeye haddii Ilaahay yiraahdo meediyaha guud ahaan oo aan rabno in si fiican u galno oo waqti badan nagu qaatay oo aan ku jiro welina hawsheeda aan ka dhamaan baan la maqnaa. haddana maanta waxaan u taaganahay bal inaan ka hadlo arrintan. runtii muuqaalkan qalbigayga geliyey murugada ku abuuray inaan seexan waayo. bal gabadhan walaasheen ah marka hore aan wada dhageysano. Soomaaliya waxaan maanta live waliga ma gelin, laakiin live waxa ay kaliftay inaan maxaa la yiraahdaa arrin ka hadlo. arrintaas oo ahayd aniga horta hooyo 4 caruur ah leh ayaan ahay. 4 caruur ay joogta nina waa qabay. ninkii qabay wuxuu sameeyay wiil ay saaxiibo yihiin baan la degnaa. أنا هبين بنشقيني يبغون ما بيشقيناين من كيبو أولو محمد آدم محمد حلا لا نستيسو تهي نك كلنا اللي يراد مولد عليه دد كان يقانا أيوان دقنا هي إن واحد عضي إن هبين هذا كمل إن أنا كسبح شقة حلقة أنا كسبح شرنا كسبح مري oo aan ugu imaaday ninkii dabada laga khaniisiyo. sariirteedii warshadeedii dhamayd gurigeygii dhamaa oo in badan arrintaas ay ugu socotay. kulli min xalay habeen iyo kor si horisay bilaabatay lama ahan. hase ahaatee way dhacday. horey ayaa waxa
waxaa loo dhihi jiray waxaa u maqli jiray kaniisiin way jiraan laakiin isla dhehayna gurigaaday ku dhici doontaa hase ahaatee way ka dhacday waa ka xumaa codka sare uma qaadi karo insha allahu tacaala videoga codkiisa sidaas ah maama malyuunna aad baan u taageeraa xaqay ka hadashaa waxaysan soomaali rabin in laga hadlo bay ka hadashaa qaris baa barateen qariski waa dhammaaday wixii la qarin jiray waa isku dhammaadeen wax dambe oo la qarinayo haba yaraatee malahan wixii xawaale جزاكم الله خيرا ولا قار وحان أركع إله كبق إله أنه قدن تقوى يعبسده نقصه دو كبدنا ولا شيء ما وحان إيدينا يو من اللي هي وحوي ويتحي وحان أو بين بشيء يسا وبين لي مليه ننكو وحوي هاي مليه إله بان نقول وحد عين وحان ربع إنتان باللعبين قصة إن شاء الله تعالى إن أن قرآن كديب يقول لعبنا ديب يقول لعبنا الدين تاني السيرة ذينا arrintan horay ma u dhacday nacam way dhacday wax u eg baa dhacay nin xaaskiisii ku eedeeyay inuu nin ku qabtay markhaatina uusan haysan baa dhacday fi suuratu nuur aayadda alla subxaanahu wa tacaala lixaad waxa uu ku leeyahay والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين ويدرأ عنها العذاب أن تشهد 4 شهادات بالله إنه لمن الكاذبين والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. إخواني قلبي يقول لا رنتي بكوضة أدنى الله رحمه هذا آيات كان قرآنك وهو وحي كهضليان سورة النور آيات اللي حاد إلى مدة الضبات وحي الله سبحانه وتعالى نقول حسوسيني قصد على حلي رسولك صلى الله عليه وسلم وإسلام مركزي دعلي سي أوين تهي أوين محوها وحنون بدن تهي سورة النور وحيابها كهذا الشبع أين تهي إن أي دفاع دو أو قصص كنوع عنه وكلا بالشدة وحيابها حنو قفا فيه أيها الله سبحانه وتعالى إن بدن كهذا وأنا آيات وأنا سورة الجبرية لأمنا عائشة رضي الله عنها قصة وحيلا ذا من سحابي أيا جورجي سكتجي مرك وقصة نقضي أيوه ويمد حاسكيسي أو نكفريه سبحان الله markii ay dhacday wax markhaati ah oo haya male diinteena islaamka sidii arintan u adkaysay daraadeed waxa ay ku sheegtay in qofka uu leeyahay 4 markhaati ah 4taas markhaatiga ah waa inuu mid kasta yiraahdo waan arkayay wayna isku jireen maaha way isku jiifeen way isla galangalanayeen way isdhuuqayeen way isla qaawanayeen cidna laga ma aqbalay 3 haday dhahdo way isku jireen oo anaga arkayna isagoo galaabaxayo xubintii ninka kan afraad haduu yiraahdo ma arkaynin waxaan arkayay iyagoo isku jiifa kaliya laga ma aqbalay shahaadadooda waa ka kac saas daraadeed baa diinta islaamku meel dheer ay dhigtay oo qofka dhagaxaan iskaga dili karin zinaduna waa khatar qofka soo guursadayna waa dhagax waxay diinteena ka xukuntay ma aha diinteena oo kaliya bible kaad ka helaysaa in diimihii naga horeeyay ay sidaas ahaayeen okay arintan marka uusan qofka u haysanin wax markhaati ah si uu qofkii ugu yimid gurigiisa asaga oo uu qofkii faashixaysa sameynaysa xaaskiisa ahayd muxuu sameynayaa bay diintu tiri Allah subhanahu wuxuu yiri 4 dhaarood buu dhaaranayaa marka ugu dambeysana wuxuu ku soo gabagabeynayaa in ay lacnadi ilaahay ku dhacdo haduu been sheegayo wal fiiriya ikhwani fillah meesha la gaarsiin hadii uu been sheegayo ilaahay lacnadiisa ku dhacdo ayuu isku habaaraya isaga is habaaraya habaar buu isku tuuraya markuu intaas sameeyo oo uu isagi intaas dhameeyo iyadii waxa lagu yeelanayaa waajib ku noqon isaga marka hore haduusan 4taas dhaarood iyo lacnada ilaahay isku tuurin waxa waajib ku noqonaya xaj in laga oofiyo
xaddul qadfa ku dhacayo haddii uu qofka isaga arrinta iyada uu soo caddayn waayo isagaa lagu yeelanayaa qof in uu caayay muslim ah aw qadfi ku tuuray dambiga isaga ahaa 80 jeedal wuxuu kaga dhacayaa isagu inuu 4 dhaarood iyo lacnad isku tuuro uu ku gabagabeeyo iyadoo ku wareegaysa marka iyada markaas waxa laga rabaa waa sida aayad ku leeyihiin iyadii marka waxa laga rabay in ay samayso 4 dhaarood oo kale markaas waxay leedahay ilaahay qadabkiisa caradiis kii hore lacnadii bay kana waxay leedahay qadabka ilaahay aniga carada ilaahay hay ugu dhacdo hadii aan ahay mid run sheegayo haduu yahay isagu in kana min as-sadiqin haduu run sheegayo arintan ku run sheegayo aniga lacnada ilaahay hay ugu dhacdo bay leedahay ku gabagabeynaysaa labadoodii xukun karatime waxa way labadoodii waa la kala dirayaa dib oo dambana isma guursan karaan dadka ilaahay bay kala raacayaan arinta waxa ka ratime waa arin aad iyo aad diinteena meel dheer ay u dhigtay oo u weyn weeye waxaan marka rabaa bal suuradu waxay bay kaga gadisan tahay anigu caalimnimo ma sheeganayo cilmi iguma dhamaan masalatul furuujna masalo adag weeye markay gaarto arinta beeca iyo furuujta laguma degdego arintaan ay shaabahdaa malihi oo waxa weeyaan si toos ah 100% ku tahay malihi laakiin waxaan leeyahay oo xaqiiqo ah waxa taagan wax musiibo ummadda Soomaaliyeed haleelay waxa noo muuqdo in ummadda Soomaaliyeed akhlaaqdeedii si burburaysa maalintu maalin waxaan rabaa halkan inaan fariin uga diro akhiran gabadha walaashay ah ee arinta iyada ah soo bandhigtay inaan iraahdo sida tan walaalay ma u fiirsato ma ka fakartay caruurtaada yaryarka ah marka arintan faafinaysa ee ka hoos ooyeyso wax la qarinaya malahna aad leedahay iskariska iyo woundska dhaawaca iyo waxa weeye jaraaxada soo gaartay qalbigooda ee ay weligood xambaarsanaan doonaan ma ka fakartay walaalay arintan in ay noqon karto tula beensado adiga aad qalbiga ku xambaari doonto xanuun fara badan adiga ku xanuunjiyo ikhwaani ilaahi subhanahu wa ta'ala wuxuu leeyahay waxaan idin soo dajiyay libaasan yuwaari sawaatikum warisha waxaan idin soo dajiyay dhar aad xirataan iyo waxa weeye waxaad huwataan waxaan idin siiyay waxaad ku qarsataan oo qalbigiina iyo maxaan ku raahdaa waxaad ku haysataan ma ahane wax banaanka oo dhan ku qarsataan baa idin siiyay dharkan waxaan u xirannahay inaan private party-ganaga wixii anaga noo khaas aan ku asturano guryaha waxaan ugu jirnaa in aan ceebahanaga ku asturano oo qaawanaantanada iyo xumaantanada aan la arag subhanallah ka waran hadii aad adigu albaabka inta furto qaawanaanta caruurtaada iyo dadkaaga iyo ninkaaga aad tusiso inaad asturato meeshay ahaan lahayd Allah subhanahu wa ta'ala dadku isaga dhigay libaaska hadii ay wixii dhexmaray ka sheekeeyaan khatar ba ka ratimayso rasuulka sallallahu alayhi wasallam leeyahay ku aan la afin buka soo galaya waxaan leeyahay guryaha waxyaabaha ka dhaco hadii xataa ay xaqiiqad tahay waxa ka qurux badnayd in maxaan ku raahdaa la qariyo oo in hoose loo sheego hadii ay wuxuu jariimo ka ratimaysana dawlad iyo police loo dacwooday leedahay in meeshaas la gaarsiiyo in la kala tago oo aan maxaan ku raahdaa caadi la sufura ka fiicnayd in aad loo soo dacwoodo Facebook ceebna ku asturmay gurigaagana waxba kama qabanayo waxna ma hagaajinayo xumaantaada musiifa faafinaya dhaawaca gurigaaga ka qayb qaadanaya dhibaato u geysanaya waxaan leeyahay ikhwaani wa akhwaati fillah please fadlan aan dib iskugu noqono akhlaaqdeena waxba ka qaldamay dib fara badan baa na gaaray burburkii wax weyn buu noo geystay annagii oo dhan baa burburayna waxa weyn fabric iyo ummadda isku xirnaanteedii iyo nasiijkeedii baa baaba'ayo kala gogo'ay ikhwaani waxaan ku soo khatimayaa anigu Allahu a'lam baan taagahay wixii meeshaas ka dhacay cidna ma garan karto gabadha walaashay si yar oo basiid ah bay u hadashay oo xitaa qeyr aysan ka muuqanin wax aan ka xukumi kara saaka ma jiraan aniga ma dhihi karo waa saxiix ma dhihi karo waa maxaan ku raahdaa been ilaah baan naga garanayaan leenahay laakiin waxa naga khuseeya ka bulsho ahaan waxaan wada leenahay jiro waxaan wada leenahay akhlaaqda guud iyo bulshada isku muxuu ahay wax ay wada wadaagto bulshadu wax ay wada leedahay ilaashatay leedahay
tarbiyada caruurta aad arkaysaan oo streetku ama wadooyinka ummadda Soomaaliyeed ay ku tarbiyeyn jirtay waxay ahayd wax ay wada leedahay ilaashanayso arrinta iyada ah waxyaan loo dhimin fadlan waxyaabaha private ka ilaahi private buu ka dhigay waana noo asturay aan asturano aan ka dayno waxyaabahan aan faafinayno had iyo jeer oo private ka noo ah public aan soo dhigayno ilaahi subxaanahu wa ta'ala idin barakeeyo waxaan jeclahay inaan commentigiina markaan fiiriyo saad waad iqadariseen i soo dhaweyseen i daawateen anigoo aan wax badan idin sheegin aqoon idin ku dhaamin allah idin barakeeyo markaan waxaan fiirinayaa insha Allah ta'ala commentiyadiina هاو أرنتا ولال السلام عليكم السلام ورحمة الله صحوي تري ولاشي صفراء يا وي مليون حسن ما قرنا يو وهاي هاي صومالي دينت بهنسنا حد نوع كو كان مركا وحن حقيقة لهين شيخو waxaan ka hadlay waxaad ka hadlayso isma leh waayo calaykum salaam sheekh maxaa caab la mooday wardiinta ha ka been abuuran wax sax ah laga hadlo okay aniga haddaad iga hadlayso commentiga waa isbedelay sorry wax sax ah akhi ukhti ma waxaa ah in uu qofku la yimaado wixii asaga private ku ahaa public inuu soo dhigo ma u malaynayo ما أها صح كاستحضي تحي واحد جورجا كذا عيو إن أسطورة إله سبحانه وتعالى أيون نفرين جزاكم الله خيرا سيف يعني يقوم بغضان كومنتيا ده لنا عم يجمره إلهي سهدي أنا أقول إن هذا جزاكم الله خيرا ولا ليال سيفا في سيو قدبية ولا شيء وحنقدر دار مياه صبر بانقدر دار مياه ولالكي جرجاس وكدمي أو دبعته كل عادي صبر بانقدر دار مياه عرورتاس إلهي سبحانه وتعالى قلبي جود هالدورو برشدنا هالدورو جزاكم الله خيرا بإذن الله تعالى وحنصوّدنا شيعة أو أن هدي له يرادو كلبية بدن كسو قلين دونه أو أن هدي له يرادو فشلين دونه ملا يجودتك كلهم السلام الله عليكم ورحمته وبركاته.